Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa amar duldhigay Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee maaliyadda. Rooble ayaa sheegay in wax lacag ah lagala bixi karin khasnad dawladda ilaa ogolaansho laga helo xafiiskiisa. Warqadda amarka ee ka soo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa ujeedadeeda lagu sheegay hubinta kharash bixinta iyo isticmaalka lacagta hay'adda IMF ee qoondada dawladda. warqadda amarka ee ka soo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa u qorneyd sida tan ku socota wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle og xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda og wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda og wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda og gudoomiyaha bangiga dhexe og hanti dhowraha qaranka iyada oo laga ambaqaadayo marxaladda kala guurka ah ee dalku u marayo iyo baahida loo qabo in taxadar dheeraad ah loo yeesho hanaanka kharash bixinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo isticmaalka qoondada lacagta hay'adda IMF. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu farayaa wasaaradda maaliyadda ee ay warqaddu sida tooska ugu socoto kow in aan la bixin karin wax qarasha noocu doonaha ahaadee ilaa fasax laga helo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. labo mushaharka ciidamada iyo shaqaalaha raashinka ciidamada mashaariicda iyo wixii kale ee kharasha oo laga maarmaan u ah adeega dawladda waa in marka hore mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu waajibaadkooda shaqo ku gutaan ogolaanshaha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inta aan la bixin lacagta. wax lacag ah lagama soo qaadi karo qoondada dawladda federaalka ee lacagta hay'adda IMF ee loo yaqaano SDRS iyada oo aan wax ogolaansho laga helin xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. ma jirto wax kale oo iska bedelay shaqada hay'adda dawladda ee warqadani ku socoto. ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray mas'uuliyiinta warqadani ay ku socoto in amarka sidiisa ay ugu dhaqmaan waxaana uu amarkani socon doonaa inta laga gudbayo xaaladda kala guurka ee dalku uu ku jiro. amarka ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli khilaaf u dhaxeeyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil iyo xilka qaadistii Fahad Yaasiin taliyii hore ee hay'adda NISA. Cabdiqani Boos SBC. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.